بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين magacaygu waa Yuusuf Cawl Xirsi waxaan ka mid ahay shaqaalaha golaha also sidoo kale waxaan ka mid ahay bahda caafimaadka waxaan doonayaa inaan dhowr kelmo ka yiraahdo qolada commissionka AIDS-ka oo saaka golaha soo booqday iyagoo wada wacyigelintoodii caadiga ahayd inaan dhowr kelmo ka yiraahdo wacyigelinta ay wadaan kow xanuunkani horta marka hore waa xanuun la nool qofka bini'aadamka ah ee ku dhaco sida uu ugu dhaca ama waxyaabaha kawskareeyana waxa weeyaan inta badan waa immunity virus baa ama AIDS-kan wax la kelmadda loo soo gaabiyo marka waxaynu doonaynaa in qofka uu ku dhaco xanuunkani inaanu macnaha lahayn in la faquuqin kow waa qodobka koowaad waayo transmissionkiisu ama sida uu u gudbaa ma aha taabashada ma aha dhididka ma aha in la wada xidho dharka intaa midna kuma gudbo marka qofka qaba inuu la noolaado bulshada waa qodob important ah wax dhibaato ah oo u keenayana ma jirto marka laga reebo waxyaabaha kale uu ku gudbayay oo ay ka mid tahay blood transfusion-kii sagaskii oo la sameeyo oo intercourse ah Allahumma salli ala Muhammad iyadoo la sameeyo maxaan raahdaa hooyada oo kale xilliga ay dhalayso iyaduna ilmaha way gudbin kartaa taasi waa taa intaas waa inta uu ku gudbayo marka maadaama uu qofkii aanu ku gudbinayn touching-ka weerinka in dharkii ay wada xidhaan inaan la faquuqin waa qodobka labaad waxaynu kala doonaynaa prevention-kiisa in laga hortago macnaha in laga hortago ayaa ka wanaagsan inta markuu qofku dhaco in la faquuqo ama in la daaweeyo taasna waxaan lahayn in aynu sameeyno prevention-kiisa iyo waxyaabii lagaga hortagayay taasina waa qodobka ugu dambeeya aynu oranaynaa waxa weeyaan dadka veterinariska ama lamaanayaasha ahi marka xilliyada ay doonayaan ama dhalinyaradu ay doonayaan inay isguursadaan inay sameeyaan before inay isbaadhaan oo screening sameeyaan haddii Ilaahay ka dhigo intaas oo qodob baynu insha Allah ku soo koobi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.